haddii marka loo malaynayay nabiga intii kartoon laga sameeyo rusuumaad musii'a lirasuul la sameeyo inay muslimiintu shibinta iska dhahaan halkaas arrintu ay ku joogsanayso maanta faransiis iyo intii arrintaas geysatay meel ay istaagaan iyo si ay yeelaan ayay garan la'yihiin waana midda keentay madaxweynaha faransiisku markuu arkay falcelintii ay muslimiintu sameeyeen dalab asaga xaggiisa ka yimid inuu kanaalka jaziira ee afka carabiga ku hadla asaga uu dalbado berigii horena ay ahaan jirtay nimankaas maalan reer galbeedka ee madaxda ah in muqaabalo lala yeesho inay adkaan jirtay oo kibir ku jira daraadii inay warbixin siiyaan ama waraysiyo siiyaan ay adkaan jirtay ayaa waxay gaartay dhibaatada qabsatay daraadeed inuu asaga soo degdego oo weliba intii maxay ahayd aan la soo gelinin markii arrinta laga sameeyey laga duubay oo twitterkiisa ku soo qoro oo yiraahdo galabta kanaalka jaziira la yiraahdo ayaan warbixin siiyay hal dhageyso si yani meesha ay ka gaartay muslimiinta inta fiican ee dadaalka badan ee masaajidada ka soo baxaysa ee dhalinyarada ah kuwaas waaba la isku ogaayo waa noocaas falcelinta ugu daran ee ugu qoskal badan waxaa ka mid ahaa mid lubnaani ah waddanka lubnaan oo dukaan khamro leh khamru gadgada markaas wuxuu sameeyay wuxuu yiri khamrada faransiiska dhinac iga bixiya la gadi maayo ayada khamradii faransiisku dhinac u saaray waa ninkaas hadda khamrada gadgadaaya ayaa banaanka iska dhigay khamradii oo yiri tan faransiiska kuma jirto midda laga ganacsanayo maxaa u malaynaa kii khamrada lahaa hadduu saa leeyahay الركع السجود ومساجد الجوجا أو وحبرتي سلبي النبي ودي فاعيان مركا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي يا إلهنا والله يعصمك من الناس مركا أيها وحيلتها هاي شخصية إسلام تعبان كرو حالي وحكوها ذا كنالك الجزيرة ممكن يصير من الحين فرانسيسكو محا مسلمين تا يعني أصور المشكلة وحاهي ستا دد كيسان عضو كرباء إن النبي لعايو وحلقة الشيبو kuwa cod bixinaya ayaa saas codka ku bixinaya kuwaas codkoodana kama maarmago rabaa muslimiinta iyo dhaqaalahan ay go'doominayaana hadii dhaqaalihiisu hoos u dhaco codkii hadan hoos u dhacay waxa leeyahay dhaqaalihii sanad ka dhigtay lama dooranayo marka bayna naarayna leeyahay laba dab dhexdood ayuu galay asagana isgeliyay marka diinta ilaahay baa iskale rasuulka sallallahu alayhi wasallam af ay ku taageen waxba uga qaadi maayaan quraanka inoo sheego ilaahay wuxuu yiri man kana yadhunnu ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسوم إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قفك لنا إلهي نصر نبي وقرقاريني وحالي السماء أما ميل كوري حركة كسو الله ديو ها إسدلدل قورت انتو قشتو كبعدين بالوحي أسوء سمية أما فلقاديد وقيستي إنا يوحكترتي إنكالي هفيريو قل موتوا بغيدكم عردين كل انتالي نلوحك قادم يسان إنك وحينوتي مركة دا مسلمين نهي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نبي مركي حاسكيس ugu been abuurtay oo ifkii la sameeyay aayadii soo day waxa kamid ahaa arintaas ayada ee munaafiqiintu ay sameeyeen ha u maleynina in dib idin tahay qoyska Abu Bakr la hadlay bal huwa khayr lakum khayr adunya hada muslimiinta khayr u yahayo koo horta waxay ka faa'iideen dareenkoodii ayaa midoobay oo muslimiinta meel ay joogaanba inay walaalihiin ayaa soo baxday gaaladu waxay inoo guuleysteen waxay ahayd innaga ina kala qaybiyeen farq tasud qaybi oo xukun hadda waan isku soo fakanay muslimiinteeni mid walba meeshii uu joogay ilaa kii khamrada gadaaya caasiga ahaa uu yiraahdo khamradii ayaan muqaatacaynaya ayay muslimiinta halka maray marka dareenkaas midoobay wuxuu keenay muslimiinta inay hor u socdaan dhanka kale berigii hore muslimiinta intii wax kasta lagu sameeyo ayaa haddana shib iska dhihi jireen maanta laba dhinac ba faa'iidaan ku qabnaa haday ahaan leed xagga yani awoodana wadan waxa ay noo soo baxay turki la yiraahdo oo xalay wad dhageysanaysan madaxweynaha faransiiska xataa hal mar ma soo qaadayo madaxweynaha turkiga iyo dawladda turkiga asagoo og meesha yani muqaadacada looga dhawaaqay dhaqaalihiisa khatar lagu geliyay hubka iyo casriga iyo waxyaabaha tiknoolajiyada horumar laga gaaray inuu wadankaas yahay kuma dhaco afkiisana kuma taagi karo kuwaas asaas markaas wuxuu u soo leexanayaa meelahan soke iyo dad wuxuu ku leeyahay marka ana islaamku dhan kama soo horjeedeen koox argagixis iyo kooxa argagixis wax halkaas la aadaaya wal meeshan argagixis salaam ta'ala rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa muslimiinta oo dhan rasuulkooda allahu ghaayatuna war rasuul qudwatuna yani muslimiinta oo dhan yoolkooduna waa ilaahay raalihiisa inay helaan rasuulkuna wuxuu yahay qudwa iyo kudayasho marka aad iyo aad u mahadsantiin dhalinyarada soo qaban qaabisay oo inta isugu imaatay
waxay ka rideen dadkeena magaalada muqdisho jooga oo yacni ayaguna dhinac kale ka dadaalay laakiin dhalinyaradan isxil qaantay ee maanta isugu imaadeen beerta nabadda oo hoolkan isugu imaadeen shicaarkooda iyo alkudhigooduna uu yahay nabiga gargaarkiisa iyo difaaciisa oo kulli wada dhalinyaro ah ummad soo noolaatay oo dhalinyaradeedu ay qiiro islaami ay ku jirto ayaa soo baxday marka ummadda islaamka way yara xanuunsataa laakiin ma dhimato marka inaan xanuunkii aan ka soo caafimaadayno ayay ku tusaysaa waxaan ku miisaal kuna soo gabagabinayaa ummaduhu iyo qofku waa isku mid qofku wuu dhashaa wuu koraa wuu duqoobaa wuu dhintaa ummaduhuna waa saas oo kale ayaraanay ku bilowdaan way koraan ka bacdina dacfi ayaa ku dhaca haddii marka maalan qof caafimaad qabay uu xanuunsado oo uu aamuso oo sii aamuso oo sariir ku ururo oo uu dhaqaaqi waayo oo lugihiisa la isku aadiyo qofkaas maxaa la filayaa inuu dhintaa la filayaa laakiin qof dhinaca kale u gedi sariir saaraa oo aamusnaa oon dhaqaaqi karin oon lugta qaadi karin oo gacan qaadi karin haddii maalin ka bacdi la arko lugaa dhaqaaqday lugti kalena way dhaqaaqday gacanaa dhaqaaqday madaxaa dhaqaaqay qofkii wuu soo fariistay markuu soo fariistay wuu maxaa la filayaa qof kor u socdaa la filayaa marka ummadda islaamka ah shalay waxay ahayd hoosay usii socotay 100 sano ka hor waxaa gadaal taariikh u akhrisaa 1920 isticmaalka reer Yurub caalamul islaami ayuu qayb u kala googoynayay hoosaa loo sii socday waa la sii hurdaayay 1920 waddankeena Soomaaliya xataa markii Ingiriiska iyo isticmaalka Ingiriiska iyo yani awooyaasheena ay la dagaalayeen 1920 hadda joognaa waa 100 sano ka bacdi rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noogu bishaareeyay inna allaha sayab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100 sana man yujaddidu laha diinaha ilaahi ummadan wuxuu u diyaarinaya u soo saaraya 100 sanaba dad manta waxa loo isticmaalaa dad badan waa loo isticmaalaa qofna waa loo isticmaalaa marka man yujaddidu laha tajdiidku wuxuu yahay habkay u noolaayeen ayay cusboonaysiinayeen habkay u fikirayeen ayay cusboonaysiinayeen dhaqaalihii ka baabay ayay cusboonaysiinayeen qalabkii iyo saanadii iyo wixii ay isku difaaci lahayn ayay cusboonaysiinayeen marka Turkiga hadda wadankan aad aragteen sida uu cimlaaqa u yahay 1920 ilaa 24 waa markii dawladda Uthmaniya afka dhulka loo galiyay oo la dhihi jiray hal la kala qaybsado tariiqat ar-rajul al-marid ninkii xanuunsanaa meelihii uu xukumi jiray hal la kala qaybsado oo Faransiiskan iyo Ingiriiskan ay ahaayeen kuwii ugu badan ee kala qaybsanayay dhulkii ay muslimiintu ay lahaayeen laakiin maanta 100 sano ka bacdi heshiiskii ay Turkiga la saxiixdeen tallaabo ma qaadi kartid waxaas ma samaysan kartid waxay kaga eg tahay 2023 maxaa la filayaa hadda maxaa ku muuqda Armenia iyo Azerbaijan la fiiri Nagorno-Karabakh maxaa ka dhacay gobolkan oo midna Azerbaijan dadka muslimiinta ay leeyihiin 30 sano ayaa waxa haystay Armenia Turkiga kaalmeeyay iska celiyeen waxay siiyeen qalabkan ay iskaga celin karaan ee diyaaradahan ay cidna wadin ee raadaaradii gaaladu ay qaban la yihiin baa duqay markaas waxay ku faaneen markay waxoogaa yar meel yar tagan kuwa gaalada ah khatar aan nahay moogtay maxaa samaysan diyaaradihii wayna arki waayeeno baterigan ka bixinay kulaha haddii bateriga la geliyo signal u bixinaa way nagu dhufanayaan waa dadaalnay bateri la'aan aan ka dhig oo bateri la'aan laga dhigan baa marka sharaf ah waa cabsi meesha soo ku shaqeyn haddii bateri laga bixiyo ma shaqeynayo waxa la rabay maxay ahayd inuusan shaqeyn yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydi almu'minina fa'tabiru ya ulul absar yani markay dadku ay yaabaan ay dhahan xageena laga jira ilaahay muslimiinta cizo iyo sharaf ayuu yeelaa marka diinta way guuleysanaysaa shaka kuma jiro baabuurkan muslimiintu dhaqaaqaya adi maxaa laga rabaa ayuha muslim baabuur guuleysanaya oo socda ma soo koree oo sharaf ma yeelanay mise waa baabuur ka tagay waa iska fadhine hadaad soo raacdana oo dhinaca diinta aad ka xoojisana sharafaad yeelanay hadaad ka hartana wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakun amthalakum marka waxa lagu ducaystaa allahumma istakhdimna wala tastabdilna ilaahuna isticmaal oo aan ku shaqeyno oo diintaada aan u adeegno wala tastabdilna ilaahu hana bedelin maxaa yeelay adiga hadaa diin la'aan noqoto waxba ma noqonayso laakiin diintu adiga la'aanta waxay noqonaysaa dad kale diintu helaysaa marka inaga sharaf inoo tahay inaan nabigeena difaacno inaga sharaf inoo tahay mawaaqif inaynu yeelano inaga sharaf inoo tahay si culimada ay tilmaamayeen dhalinyaradeennu inay ku daydaan asxaabtii iyo dhalinyaradii nabiga uu tarbiyay waxa la yiraahdaa hadaan xataa gaari karayn tashabbahu birrijali in lam takunu mithlahum hatta isu ekaysiya
dadkii ragga ahaa haddaydan ayagoo kale noqon karin fa ina tashabuha birijaali falaaxu hataa isu ekaysiinta rag lagu noqonayo oo lagu guulaysanayo marka aadaan idinka mahad celinaynaa dhalinadii soo qaban qaabisay culimadii kasoo qayb gashay warbaahinta nagu sharaftay inay arrintan kasoo qayb galaan marka waxaan leenahay soomaaliya reer muqdisho u duceeya dhalinyaradiina iyo culimadiina waxay idinka qaadeen arrin muhiim ahayd oo dareen muujin oo ay muujiyeen nabigaana ka soo gaaray sallallahu alayhi wasallam in dareenka la muujiyo markii oo umradii cumreysanayay oo intay gaalada u diideen markii hore yaa markuu soo laabtay waxay suuqa geliyeen gaalada intay banaanka soo istaagaan dad madiina ka imaaday oo qandadii madiina ay daciifisay ayaa idin imaan doona ayaa la maqlay nabigu muxuu ku yiri saasayna dhahayeen waxa sameeysan dhinaca gaaladu ay naga arkaayeen ay taagan yihiin ina fiirsanay inaan dad daciif nahay oo qandadii madiina ay daciifisay haday u maleynaa waxa sameeysan muruqa ama dhinaca midna markii la cimraysanay ma la xajinayo marada cad waxa la sameeyaa muruqana la soo bixiyaa oo waxba ayna saarnayn marada hoosa laga marinaa korka la saaranaya muruqa waa meeshii ay gaaladu ku aadanayeen muruq iyo xooga la tusinaya markaas waxay arkayaan dad muruqoodu go'an yahay oo tawaafaya kacbadii way cabsanayaan marka caalam islaami waxa maanta ka socda waxay tahay muslimiintii way soo baxeen maxaa naga qaadaysiin way Allahu akbar walillahi alhamd takbir Allahu akbar walillahi alhamd